wanaysa halka nagala socoto ama barta YouTube-ka ee wariica Tooshare waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Gosgoska Ciyaaraha qodobada aan ku soo qaadan doono waxa qayb ka noqon doona Philippe Coutinho oo laga yaabo inuu ka tago naadiga kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Douglas Costa asagana waxa uu ka tagi doona naadiga kooxda kubadda cagta ee Juventus. waxaan kaloo soo qaadan doonaa macalinka cusub ee kooxda Barcelona oo doonayo in uu qorshe cusub dejisto wararkii ugu dambeeyay ee dhaqdhaqaaqa suuqa kala iibsiga waxyaabihii wakaaladaha iyo wargeysyada caalamka ay ka diiwaan geliyeen. aan ku horeyne kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxa laga yaabaa inay fasaxdo laacibkeeda qadka dhexe ee kaga ciyaara oo hadda amaah kaga maqan xidigaasi oo lagu magacaabo Philippe Coutinho waxa laga yaabaa inuu ka tagay naadiga kooxda kubadda cagta ee Barcelona kadib markii xidigaasi si arxan dara ah uu ugu soo reebay naadiga Barcelona tartanka UEFA Champions League. xidiga reer Brazil kooxaha daneynaya waxa kamid ah Tottenham, Chelsea, Manchester City, Manchester United iyo Arsenal kuwaas oo adeega xidigaasi aad u xiiseenayo. wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in laacibkan asagana uu daneynayninba in uu ku soo laabto magaalada Camp Nou ee kooxda Barcelona. dhanka kale xidiga khadka dhexe ugu ciyaara kooxda kubadda cagta ee Real Madrid James Rodriguez asagana waxaa la sheegayaa in uu laacibkan ka tagi doono naadiga Real Madrid. laacibkan ayaa waxa uu boos joogto ah ka waayay naadiga Real Madrid. wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in xidigan uu doonayo in uu koox kale uu ku biiro. dhanka kale macalinka cusub ee kooxda kubadda cagta Juventus Andrea Pirlo waxa uu doonayaa in uu iibiyo laacibka lagu magacaabo Douglas Costa. xidigan ayaa waxa lagu gacan haatinayaa kooxaha Premier League oo aad u doonayo. laacibkan ayaa waxa loo sheegay in uu qayb ka ahayn qorshaha macalinka kooxda kubadda cagta Juventus Andrea Pirlo. wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in xidiga laga doonayo kooxa ka dhisan qaaradda Yurub oo aad u xiiseenayo. dhanka kale waxaa la filayaa maalinta Axadda ah in la soo gabagabeeyo tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League. waxaa markii ugu horeysay isaga hor imaan doono kooxaha PSG iyo Bayern Munich. taariikhda waxay sheegaysaa in labadan kooxood ay tahay markii ugu horeysay oo ay ciyaari doonaan tartanka koobka kooxaha qaaradda Yurub. labadan kooxood ayaana waxaa dhaxmari doona kulan aad xiisad iyo xamaasad badan u leh. wararka waxay sheegayaan in kooxahan ay ku xifaaltami doonaan sidii ay koobkan ugu guuleysan lahaayeen. naadiga Bayern Munich waxay doonaysaa in ay mar kale ay ku guuleysato tartankan iyada oo sidoo kale ay naadiga PSG lafteeda ay doonayso markii ugu horeysay in ay tartankan ay qaadaan. taageerayaasha caalamka ayaa aad u falanqeynaya kuwaas oo aad u hadalhaya labadan kooxood. dhanka kale Khalidou Koulibaly asagana waxaa la sheegayaa in uu ka tagi doono kooxda kubadda cagta ee Napoli. xidigan ayaa lala xiriirinayaa kooxaha Premier League sida Manchester United iyo Liverpool. wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in xidigan laga yaabo in uu ku soo biiro kooxaha Premier League. dhanka kale kooxda Bayern Munich ayaa Liverpool waxay u sheegtay in laacibka Thiago Alcantara ay heli doonaan marka ay naadiga Bayern Munich ay ka soo hadha tartanka koobka kooxaha qaaradda Yurub ee UEFA Champions League ama ay ku guuleysato xagaagan. wararka ayaa waxay sheegayaan in xidigan uu diiday in heshiis cusub uu u saxiixo naadiga kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. taasi ayaa qasbi doonto in laacibka laga fasaxo gegada Allianz Arena oo ay ku ciyaarto naadiga Bayern Munich. xidigan ayaa waxa uu xiise ka helayaa macalinka reer Germany ee Jurgen Klopp waxaana la sheegayaa in laacibkan uu ku biiri doono naadiga Liverpool marka ay naadiga Bayern Munich ay ku guuleysato tartankan ama laga qaado. sidoo kale naadiga Liverpool ayaa aad u xiiseynayso xidigaasi waxayna sheegaysaa Liverpool inay daneynaysa inay soo qaadato Alcantara. wuxuu ka mid yahay xidigaha Klopp uu aad u doorbidayo in uu keeno gegada Anfield oo ay ku ciyaarto naadiga kooxda kubadda cagta ee Liverpool. dhanka kale xidiga u ciyaara kooxda Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang asagana waxaa la sheegayaa in laacibkan laga yaabo in naadiga Arsenal gabi ahaanba uu macsalaameeyo. wararka ayaa waxay sheegayaan in Arsenal xidigan ay ka iibin doonto kooxda doonayso. xidiga reer Gabon waxa uu ka mid yahay xidigaha sida fiican ugu soo dhex muuqda naadiga Arsenal isla markaana soo bandhiga qaab ciyaareed aad u wanaagsan. dhanka kale Alexander Lacazette waxa uu xiise ka helayaa naadiga Juventus wuxuuna xidigan uu doonayaa in uu ku biiro dhankaas iyo horyaalka Italian Serie A.
wararka ayaa waxay sheegayaan naadiga Juventus uu hogaamiye macallin Pirlo in uu aad u xiiseynayo in laacibkaas uu ku soo kordhiyo dhanka iyo weerarka inkastoo naadiga Juventus xil ciyaareedkan ay sameynayso isbedel aad u waaweyn oo ay ku doonayso inay ku xoojiso kooxda guud ahaanba. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii goosgooska cayaaraha ee suuqa kala iibsiga oo aad kala socoteen barta YouTube-ka wariye Catoshare. barnaamijka anigoo Catoshare ayaa idin soo saaray inala socodsiinaya. fadlan haddii aad nagu cusub tahay furo gambaleelka subscribe, like, share, commentiga waa xageena mahadsanidin.